khudbada walaalayaal sidaad maqlayseen waxay ka hadlaysay ay ku saabsanayd mowduucan ah athiqatu waاlictimaad watawakul cala allah kalsoonida alle iyo sideen nolosheenna aan ugu dabaknaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu tala saaranno sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimaheenna dhan aan ugu tala saaran lahayn sidii nolosheenna aan ugu dabakhi lahayn mowduuca tawakulka ayaa khudbadu ay ka hadlaysa ifkan iyo koonkan walaalayaal aanu ku noolnahay waxaad arkaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba wuxuu u sameeyey asbaab wax walba ee ifkan ka dhacaya ilaahay wuxuu u sameeyey asbaab sababo ayuu u yeelay qofku tusaale ahaan markuu doonayo carruur inuu dhalo waxaa ilaahay sabab ugu dhigay inuu horta guursado marka hore inuu guursado oo sababtii carruurta uu ku heli lahaa inuu la yimaado laakiin qofku hadduu yidhaaho ilaahay wuxuu awood u leeyahay inuu carruur isiiyo ma guursanayo anigoo sariirtayda jiifa ayaan rabaa inaan carruur helo oo aanan guursanin ilaahay wuu awoodaa subxaanahu wa tacaala intaa iyo ka badanba ilaahay wuu awoodaa laakiin nidaamka ifka ilaahay ugu talagalay nidaamkaas ma aha nidaamka ifku ku socdo oo adduunyadan ay ku socoto dabiicada koonka ilaahay uu ku socodsiiyey nidaamkaas ma aha laakiin ilaahay wuu awoodaa markuu doonayo qofku inuu irsaaqadiisa uu raadsado waa in asbaabtii uu la yimaado asbaabtii risqiga uu ku raadin lahaa waa inuu la yimaado tusaale ahaan waa inuu ganacsi sameeyo waa inuu dukaan uu furto wax walba marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey asbaab laakiin waxaa meesha taagan oo khudbadu ay ka hadlaysay waxaa weeye asbaabtaa in qalbiga aan looga xirnaanin gacanta laga sameeyo laakiin qalbigaagu uu ilaahay ku xirnaado subxaanahu wa tacaala waa inaadan aaminin dukaanku inuu ku irsaaqo dukaanaad furatay dukaanku inuu risqiga ku siiyo waa inaadan aaminin waa inaad aaminto waxa raasiqa ah ee irsaaqadda ku siinay oo ku xanaanaynaya huwa allaahu jalla fii culaah ilaahay inuu yahay subxaanahu wa tacaala laakiin dukaankan waxaad u furan bimujarad yacni dabiicati hada alkown koonkan dabiicadiisa ilaahay wuxuu sabab uga dhigay musabab walba ee dhacaya inuu ilaahay sabab u siiyo marka aad samaynayso marka aad wax guursanayso oo haweeney aad guursanayso ha aaminin in adugu carruurta aad keeni kartid ama gabadhu ay keeni karto waxaa carruurta keenaya hadduu rabana diidaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala idan marka ifkaan hal dhibac oo nafci ah oo adiga nafcigaaga ahi kama dhici karto ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu qorsheeyo oo ilaahay uu kuu qadaro mooye dhibac dhib ah oo dhibaataana ifkaan kuma soo gaari karto ilaa in ilaahay kuu qorsheeyo mooye arrimahaaga dhan waxay kaaga xihan yihiin rabbulcizati jalla fii culaah haddaad guursato guurkaaga ayaadan ilmo ku helaynin hadduusan ilaahay ku siinin haddaad dukaan iyo ganacsi iyo kambani weyn furato isagaa laga yaabaa inaad kulayl iyo abaar iyo burbur iyo baaba aad ka qaadid hadduusan ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku gacan qabanin oo albaabka risqiga ilaahay uusan kuu furinin subxaanahu wa tacaala leanna waxaad dhici kartaa sababkii adigu haddaad sababka qalbiga ka aaminto waxaad dhici karta sababkii adiga aad nafciga ka rajaynaysay in dhibaato lagu soo dhex marsiiyo ilaahayna wuu awoodaa in dhibaato lagu soo dhex marsiiyo ilaahay wuu awoodaa wixii adigu aad nafciga ka raadsiinaysay taasaa marka kugu kallifaysa arrimahaaga dhan iyo shu'uuntaada dhan iyo qalbigaaga dhan inaad ilaahay ku xirto subxaanahu wa tacaala tusaale ahaan qofku hadduu ciidan samaysto uu yidhaaho amnigayga waxaan ku ilaalinayaa ciidan qalbigiisa hadduusan ilaahay isku xihin oo uusan dhihin ilaahay waa allaha i badbaadinay oo adkaarta uusan akhrisanin oo salaaddii uusan tukanin oo qalbigiisa mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan isku dhiibinin oo ilaahay uusan tala saaranin waxaa dhici karta ciidankii waardiyeynayey oo asagu islahaa noloshaaday badbaadinayaan in ayaga dhibaatadii ilaahay kuu soo marsiiyo kii ku waardiyeynayey ilaahay uu kugu sallido oo asaguba uu ku dilo wax badanna way dhacday waad la socotaan wax badanna way dhacday waad la socotaan marka asbaabta yaan la aaminin khudbadu waxay ka hadlaysa waxaa weeye sababkan waxba ha aaminina ilaahay ku kalsoono subxaanahu wa tacaala maca daalika shareecaduna ma diidayso sababka iska samee laakiin qalbigaaga ilaahay ku xir asbaabtan qalbiga ha ku xirin asbaabtan aad samaysanayso qalbigaaga ha ku xirin qalbigaaga ilaahay ku xir aamin hadduusan ilaahay ku badbaadin
cid ku badbaadin kartaa inaysan jirin hadduusan alle subxaanahu wa tacaala dhibaato isagu uusan kuu qadarin cid ku dhibi kartaa inaysan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahy isagoo mowduuca tawakulka iyo tala saarashada alleh ilaahayna baraya wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa ilaa hu haddii ilaahay dhibaato uu kugu taabto dhibkaa wax kaa faydi karaahi ma jiraan ilaa isaga mooye falaa kaashifa lahu ilaa hu dhibkaas wax faydi karaahi ma jiraan ilaa ilaahay mooye wax yaroo dhibaataa hadday kugu dhacdo ilaahay unbaa kaa qaadi kara asbaabta koonkao dhan ifkan iyo caalamkao dhan hadduu isku yimaado wax yaroo dhibaato ah kaama qaadi karaan quraanjo kuu soo socota ku qaniinaysa cid kaa celin kartaa ma jirto caalamkan oo dhan hadduu isku tago hadduusan ilaahay kaa celinin subxaanahu wa tacaala wain yamsaska bikhayrin falaa raadda lifadlih ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi hadduu ilaahay khayr kula doonana khayrkaa cid kaa hor istaagi kartaahi ma jirto hadduu ilaahay risqi kula doono hadduu ilaahay cilmi kula doono hadduu ilaahay janno kula doono hadduu ilaahay ridihiisa kula doono caalamkao dhan hadduu isku yimaado kama celin karaan kamana hor istaagi karaan wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula doonay dhibkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu asiibayuu kula doodana caalamkao dhani hadduu isku dayo kama hor istaagi karo kamana difaaci karo dhibkaa kuu soo socda oo ilaahay uu kuu qadaray oo ilaahay uu kuu qorsheeyey waa inuu qofku sidaa noloshiisa ku saleeyo mar walbaba maxaa yeelay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuuna amray isaguna uu samayn jiray habeen walba nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh markuu seexanayo wuxuu noloshiisa ku soo cusboonaysiin jiray tawakulka iyo tala saarashada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa ducooyinka lagu seexdo nebigeennuna uu ku seexan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh allaahumma innii aslamtu nafsii ilayk allaahumma innii aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawaltu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja walaa manja mink ilaa ilayk dikrigaasuu ku seexan jiray nebigu sala allahu calayh wasalam waa adkaar qofku hadduu ku jiifto ku xiraysa ilaahay tusinaysana qofkana ilahay inuu ku kalsoon yahay subxaanahu wa tacaala dikrigaa macnihiisu muxuu yahay allaahumma innii aslamtu nafsii ilayk ilaahu naftaydii adigaan kuu dhiibtay bis naftaydii adigaan kuu dhiibtay xifdigeedii irsaaqadeedii jannadeedii ridihii ay kaa doonaysay nafsadayda dhan ilaahu adigaan kuu dhiibtay waa kalsooni meeshii ugu dambaysay allaahumma innii aslamtu nafsii ilayk habeen walbuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam ummaddiisana wuxuu amray in lagu seexdo tawakulkaa ilaahay tala saarashada ilaahay qalbigaaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xirnaado carabkana aad uga dhawaaqdo tala saarashada alle iyo kalsoonida alle aad ku kalsoon tahay subxaanahu wa tacaala allaahumma innii aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wejigaygana adiga un baan kuu jeediyey cid kaloona caabudayo ma jirto wafawaltu amrii ilayk ilaahu taladaydii iyo arrinkaygiina adigaan kuu daayey oon kuu bandhig arrimahaygu ilaahu ma toosnaanayaan haddaadan adigu ii toosin haddaadan ii toosin risqigu ma toosayo ammaankaygu ma toosayo janno ma helayo ridahayga ma helayo haddaadan ilaahu isiinin adigu subxaanahu wa tacaala wafawaltu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ilaahu dhabarkayguna adigu kugu tiirsan yahay cid kale kuma tiirsani cid kale kuma tiirsani adigoo un baan isku kaa hallayn ragbatan warahbatan ilayk waxaan sidaa u yeelayana waa cabsi aan kaa baqayo iyo rajo naxariistaada aan rajaynayo waxaan kugu kalsoonahay ee habeen walba aan leeyahay ilaahu naftaydii adigaan kuugu dhiibay waa baqdin aan kaa baqayo iyo rajo aan naxariistaada rajaynayo rabbiyo ragbatan warahbatan ilayk laa malja walaa manja minka ilaa ilayk ilaahu meel lagaaga dhuuman karo oo lagaaga badbaadi karaa ma jirto wixii dhiba ood ii soo qorshaysay meel lagaaga dhuuman karaa ilaahu ma jirto adkaartaasuu ku seexan jiray nebigeenna sala allahu calayh wasalam imaamu albukhaari kitaabkiisa saxiixa ah ayuu dikrigaa ku wariyey inuu nebigu sala allahu calayh wasalam habeen walba ku seexan jiray ummaddiisana sidaasuu amray nebiga sala allahu calayh wasalam maxaad u malaynaysaa marka qof habeen walba ku seexanaya ilaahu naftaydii iyo taladaydii adigaan kuu dhiibtay naftaydii iyo taladaydii adigaan kuu dhiibtay qof carabka ka dhahaya qalbigiisana uu ku xihan yahay
maxaad u malayn waa kalsooni meeshii ugu dambaysay arrimahaaga dhan ilaaha kuu toosinaya subxaanahu wa tacaala arrimahaaga dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala u qorshaynaya sida aad raalli ku tahay ilaahayna uu raalli kaaga yahay subxaanahu wa tacaala waxaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh isagoo ummaddiisa ku xiraya ilaahay subxaanahu wa tacaala inay aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan oo asbaabtan ifkan aysan ka baqin oo ilaahay mooye cid kale aysan ka baqin oo qof kale aysan waxba ka rajaynin ilaa ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh mar walbuu gurigiisa ka baxayo wuxuu dhihi jiray nebigu sala allahu calayh wasalam bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaahu magaca ilaahay ayaan gurigayga uga baxaa adiga ayaan ku tala saartay cid awood leh iyo xiilad leh ma jirto ilaa adiga mooye subxaanahu wa tacaala nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dikrigaa qofkii akhristaa oo sidaa ilaahay u tala saarta markuu gurigiisa ka baxayo yuqaalu lahu hudiita wa kufiita wa wuqiita waxaa lagu yidhaha malaa'igtu ay u yidhaahaan waad hanuuntay waa lagu ilaaliyey waardiye ayaana ilaahay kaa hayn doonaa subxaanahu wa tacaala adduuniya aakhiradaadaba ilahay waardiinayo subxaanahu wa tacaala bal u fiirso waad ku seexatay tawakulka ilaahay waad ku seexatay gurigaaga markaad ka baxaysana tawakulka ilaahay aad uga soo baxday adigoo ilaahay tala saartay rabbigaa ku kalsoon ayaad uga soo baxday bismi illaahi tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ilaa billaah magaca ilaahay aan guriga uga baxaa ilaahayna waan tala saartay kalsoonidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku hadduu dhiibo waxa ka yaraanaya ama ka baaba'ayaba noloshiisa wax walwal la yidhaaho wax walwal la yidhaaho ma arkayo liannahu taladiisii ilaahay uu dhiibtay ilaahay ifkan dhan xukumayey oo ifka dhan maamulayey ayuu taladiisii u dhiibtay wuxuu og yahay wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uga yimaado naxariis ah cid ka hor istaagi kartaa inaysan jirin wuxuu og yahay wixii dhibaato ah oo loo qadaray oo loo qorsheeyey inay ka da'wan yihiin ilaahayna dembi dhaaf uu ka siinayo haddii cudurro iyo xanuun uu ku dhaco in ilaahay ugu dembi dhaafayo wax ka weyn ilaahay uu uga rajaynayo subxaanahu wa tacaala qofkaasi marka wuxuu ku noolaa noloshiisa qalbi degganaasho tawakulku faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a noloshaada ood ku dhammaysanayso inta yaroo adduunyada kaaga dhiman qalbi deggan iyo raaxa aad ku dhammaysanayso amaa qofku hadduusan ilaahay ku kalsoonayn oo ilaahay uusan tala saaranaynin wax yar hadday soo wajahaan oo qalqal adduunyo ah ama dhibaato adduunya ay soo wajahaan waxaa laga yaabaa inuu waasho xataa dadka waalan qaybo badan oo ka mid ah waxyaalaha waalay waxaa ka mid a mushkilo yaroo la soo wajahday bis haddana qalbigoodiina laga waayey kalsooni alleh rabbi aysan ku kalsoonayn waa gaajooday waa waalana hantidiiaa ka dhammaatay hantidiiaa ka gubatay waa waalana xanuun khatar ah laga soo sheegay waa ku dhuftay waxaasoo dhan maxaa keenaya kalsooni darrada ilahay uusan ku kalsoonayn subxaanahu wa tacaala noloshaada isku day in ilaahay subxaanahu wa tacaala aad bartid noloshaada in ilaahay aad ku kalsoonaato subxaanahu wa tacaala rabbina aad noloshaada subxaanahu wa tacaala ugu kalsoonaato noloshaada adduunyo iyo mid aakhiro haddii kale waxaad ogaataa noloshaadu qalqal inaad ku dhammaysan doonto adduunyada iyo murugo iyo kurbo inaad ku dhammaysan doonto wax yarna aadan xamili karin oo dhibaataha ku soo gaarto oodan la hurdi karin habeenkii oodan la seexan karin oo dadkii oo dhan aad u caroonayso oo marka dambe adigu aad isnacayso dadka dhan intaad nacdo naftaadaad u caroon doontaa naftaadaad nici doonta maxaa ku kallifay gaaladu markay isdilayaan markay adduunyadan dhan ciriiri ay galeen ayaa haddana waxaa isnacay jirkoodii iyo naftoodii naftii iyo jirkiiyaa isnacay oo isdiiday maxay marka ku kalliftay inay isdilaan oo nolosha ay isdhaafsiiyaan waxaasoo dhan waxaa weeye ku xirnaashada ilaahay aan lagu xirnayn kalsoonida ilaahay aan lagu kalsoonayn waxay keeni qalqal waxay keeni humuum waxay keeni walbahaaro fara badan ayay keeni nabigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh markuu tilmaamayey tawakulka wuxuu sheegay maalin maalmaha ka mid a xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen nabigeennu salى اllahu calayh wasalam wuxuu sheegay 70,000 oo ummadda nebiga ka mida salى اllahu calayhi wasalam oo jannada ku gelaya bigayri xisaab walaa cadaab ayagoon xisaab la soo marsiinin oon cadaab la soo marsiinin 70,000 oo jannada gelaysuu sheegay nebigu salى اllahu calayh wasalam saxaabadii nebiga salى اllahu calayh wasalam waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay noo tilmaan maxay ku mutaysteen 70,000 oo ummadda ka mid ah ee jannadii xisaab la'aan cadaab la'aan gelaya
qodobada ugu muhiimsan oo ay ku mutaysteen maxay tahay nabiga salى الlahu عalayه wasalam qodobadii u tiriyey wuxuu yidhi hum الadiina laa ystarquun walaa yaktawuun walaa yatadayaruun وعalىa rabbihim yatawakaluun waa xadiiskii صaxiixaynka bukhaari iyo muslim ay warinayeen nabiga salى الlahu عalayه wasalam wuxuu yidhi waa kuwa aan baasaysan nolosha kuwa aan baasaysan woon rabbigoodna tala saarta baasaysiga maxaa loola jeedaa carabtii hore dhaqamadoodu waxay lahaan jireen dadka qaarkoodna hadda noloshaasi weli ku dambaysaahe qaarkood waxay samayn jireen guumays hadduu guriga ku soo dego waxay dhihi jireen balaayaa ku dhacday gurigan balaayaa dhacday qofaa dhimanaysa ama cudur khatar aha qof ku dhici doona nabiga salى الlahu عalayه wasalam marka wuxuu yidhi walaa yatadayaruun waa kuwa aan baasaysanoo shimbiraha iyo mukulaalaha madmadow iyo waxyaalaha maaragtaa sidaasa inuu dhib u keeni karo dadka aan aaminaynin oo ilaahay ku kalsoon wax ilaahay uusan u qorshaynin oo ilaahay uusan u qadarin cid ku samayn kartaa inaysan jirin dadkaa sidaa aaminsan wey buuri nabigu salى الlahu عalayه wasalam baasaysigaa noqon maxaa yeelay jaahiliyadii hore waxay samayn jireen markii ay safrayaan safaray maalan doonayaan inay aadaan markaasi waxay samayn jireen shimbir geed saaran bal nolosha heerka ay maraysay shimbir geed saaran u imanayo dhaguxuu dhulka ka qaadana shimbirtaasuu ku tuuri marka shimbirtaas wuxuu fiirinaya jihada ay u duusho haddii jihada bidixda ay u duusho wuxuu leeyahay safarkaygan dhibaata igu gaaraysa waa ka baaqanaa safarkii hadduu guursan lahaa wuxuu leeyahay ma guursanayo shimbirtaa waxay dhinaca bidixda ugu duushay waa in balaayo ii soo socoto haddii dhinaca midigta ay u duushana wuxuu leeyahay safarku waa ii khayr haddaan safri karaa guurku hadduu khayr iiya haddaan guursan karaa huu leeyahay haddii jihooyin kaleo aan bidix iyo midig midna aan ahayn ay u duushana wuxuu leeyahay waa inaan ku soo celiyo shimbir kale waa inaan raadiyo haddana oon tuur maanta o dhan shimbir tuuriyaysu ku jira ilaa uu ka helo mid ama midig u duusha ama bidix uu ku duusho noloshiisa saa uu ku saleeyo ilaa uu ka helo bini aadamku hadduusa kalsoonida ilaahay laga waayo sidaasuu nolosha uga dhacaa wuxuu noqdaa xayawaanaadka caqligoodii oo kale ku shaqeeya caqliga insaaniyada dhana ka lumaysa qofka hadduusan kalsooni ilaahay wadan subxaanahu wa tacaala bal shimbir qofka ka baqaya fiiri shimbir dhinaca u haaday bidixda qof safarkiisii ku baajinay oo guurkiisii ku baajinay oo noloshiisii dhammaa ku xidhay shimbiraha noloshii dhan shimbiraha ku xidhay nabiga marka salى الlahu عalayه wasalam dhaqamadaasuu la dagaalamayo wuxuu dhahayey walaa yatadayaruun وعalىa rabbihim yatawakaluun waxaa dadka qaarkood hadda ay samaynayaan waxaa weeye qaarkood waxay leeyihiin deriska marka cusbada uu ka soo doonto habeenkii ama uu ka soo doonto ukunta waxay leeyihiin laba cadcad habeenkii layskuma soo doonto shumiyo balaayaa nugu dhacaysa war deriskaaga inaad wax ku sadaqaysato oo deriskaaga xawaa'ijtooda aad u istaagto waa qayb diinta ka mid a waxaad ku heli raxmaddii ilaahay cudurrada ilaahay kaaga qaadahaya subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu leeyahay jahli heerka uu gaaray wuxuu leeyahay laba cadcad habeenkii layskuma soo doonto uu leeyahy oo labada cadcad maxay yihiin waa cusbada iyo ukunta layskuma soo doonto subaxii imaad iyo duhuradii iyo iisoo doono laakiin habeenkii maya wuxuu ka baqahayaa ukuntaas iyo cusbadaasuu ka baqahaya bal qofka noloshiisa yacni sida ay noqotay caqligii caadigaa xataa diin la-aaniska diinta ka tag caqligii caadigaa wuu ka lumay qofku hadduusan ilaahay ku kalsoonayn caqliga caadiga xataa ka lumay caqliga caadiga ayaa ka lumay shimbirahaasuu ka baqahay ukumuhuu ka baqahay cusbaduu ka baqahay maantao dhan welwel iyo walbahaaru noloshiisa ku dhammaysan mukulaasha madow dadka qaarku waxay samaynayaan waxay ku leeyihiin saaka gurigayga haddii aan ka baxo mukulaal madow hadday xayawaanka ugu horeeya iga hor yimaad u noqdo biswo cuduraa igu soo wajahan mukulaasha madow waa dadka soomaalida qaarkood dhaqamada soomaalida qaarkood wey mukulaal madow hadday iga hor timaado maanta waa ii dhammaatay u leeyahy waa ii dhammaatay maxaa keenaya waxaasoo dhan tawakulkiioo la waayey tawakulkii iyo kalsoonidii alle ayaa ka luntay qofka markaasuu mukulaalaha ka baqahay markaasuu mukulaalihii taladiisi u dhiibtay markaasuu shimbirihii talihiisi u dhiibtay markaasuu cusbayo ukun taladoodii u dhiibtay eber marka noloshii dhammaa waa ka dhacay noloshiisii waxay noqotay noloshii xayawaanaadka noloshiisu noqotay lidaalika nabigeena salى اllahu waslama wabaaraka calayh markuu tilmaamayey dadkaa jannada gelaya bigayri xisaab walaa cadaab wuxuu yidhi hum aladiina
laa yatadayaruun wa calىa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa aan waxba baasaysan waxba kuwa aan baasaysan wey almu'min mutafaa'il laa mutashaa'im yenbagii lilmu'min an yakuuna mutafaa'ila laa mutashaa'ima muuminka waxaa u habboon inuu mar walbaba farxad uu ku nool yahay ilaahayna uu ku kalsoon yahay laakiin in mar walbaba adduunyada uu ka fiiriyo min zaawiyatin dayiqatin mudlima hal angal ama ciriiri mugdi ah oo musiibo ah inuu noloshiisa ku xidho ma ah oo meel walba adduunyadii uu ku fiiriyo adduunyada dhan inay ku hareeraysan tahay dhibaatooyin iyo musiibo inay ku soo wajahan yihiin oo wax walba oo ka hor yimaado musiibo ay u keenayaan hadduu sidaa adduunyadii u fiiriyo caafimaadkiisa xataa khatar ku jira waa inuu qalbigiisa raaxo mar walbaba ka dareemayo waa inuu kalsooni ilaahay uu qabo waa in noloshu waa iska yar tahay saacadaha yaroo kuu dhiman waa inaad ku dhammaysato yacni deganaasho iyo alla ku xirnaasho iyo kalsoonida rabbi subxaanahu wa tacaala inaad ku dhammaysatid nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh asbaabtan ifkan joogta ma aysan cabsi gelinaynin nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh ma cabsi gelinaynin maxaa yeelay qofku hadduu ilaahay ku xihan yahay wuxuu og yahay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan u keenin cid ku samayn kartaahi ma jirto mahmaa awood kasta uu sheeganayo mahmaa hub kasta uu wato mahmaa magac kasta uu leeyahay nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh maalin maalmaha ka mida isagoo geed hoos jiifa oo meeshaa ku hurdooday nabiga salى اllahu عalayه wasalam ayaa waxaa soo gaatamay nin gaal ah ayaa u soo gaatamay nabiga salى اllahu عalayه wasalam seeftii nabigu calayhi الsalaatu wasalaam oo geedka ku tiirsanayd ayuu gaalkii tartiib u soo qaatay markaasuu nabigu salى اllahu عalayه wasalama wuxuu hurdada ka toosay seeftii oo ninkan gaalka gacanta ugu jirta oo gaalkii markaas uu leeyahay man yamnacuka minii yaa iga kaa difaacaya nabiy llaahi moxamedu salى اllahu عalيه wasalam cid ku waardiinaysana ma jirtood isku hadlaynayso hubkaagiina gacantan ku haystaa yaa iga kaa difaacay markaas waxa weeye marxaladda noocaas oo kale qofku markuu marayo markaasaa la ogaadaa qofka rujuuliyadiisa kalsoonidiisa alle subxaanahu wa tacaala markaasaa la ogaadaa qofku marxaladdaas oo kale markuu marayo waa duruuf aad u adag duruufahaas aad u dhibka badan ayaa ilaahay ku fiiriyaa bal ciddaad ku kalsoonta bal noloshaadu meeshay ku wajan tahay duruufahaas oo kalea la fiiri qofka dadka qaarkood xaaladdaas oo kale way ku waalan lahaayeen waa ku nixi lahaayeen nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wuxuu yidhi allah ilaahay iga kaa difaacayuu yidhi nabiga salى اllahu عalيه wasalam fasaqada sayfu min yadih qofku hadduu ilaahay ku kalsoonaado ina allaha yuxibu اlmutawakiliin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay faidaa cazamta fatawakal calى اllah go-aan markaad gaartid ilaahay tala saarto ilaahay tala saarto faidaa cazamta fatawakal calى اllah ina allaha yuxibu اlmutawakiliin maxaa yeele ilaahay wuu jecel yahay qofka ilaahay tala saarta subxaanahu wa tacaala ilaahay hadduu ku jeclaaday oo ilaahay aad tala saartay xabiibku xabiibkiisa ma dayacayo haddaad ilaahay tala saaratay ilaaha ku jeclaanay ilaahay hadduu ku jeclaadana xabiibku xabiibkiisa ma dayaco ilaahay xabiibkiisa yaad noqotay marba haddaad ilaahay kalsoonida subxaanahu wa tacaala alla aad ku kalsoonaatay xabiibkuna xabiibkiisa ma dayacayo xabiibku xabiibkiisa ma cadaabayo xabiibku xabiibkiisa iskama xijaabayo xabiibku xabiibkiisa danaha uu weydiisto wuu siiyaa wala fiirso tawakulka intaasaad ku gaari nabigeena salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ilaahay iga kaa difaacayo seeftii aa ilaahay gacantiisa ka riday ninkii gaalka ahaa nabigaa qaatay salى اllahu wasalam wbaaraka calayh nabigaa qaatay salى اllahu عalيه wasalam seeftii markaasuu ku yidhi waman yamnacuka mini yaa iga kaa difaacayuu yidhi anigana yaa iga kaa difaacay dee asagu alla male waa gaal wuxuu caabudo ma lah dhagaxdan iyo geedahan uu iska caabudaa gaalkii wuxuu yidhi kun khayra aakhidin lisayf qof hub qaata qofka ugu fiican oo ugu naxariista badan noqon nabiy llaahi moxamedow salى اllahu عalيه wasalam ii naxariis nabiga salى اllahu عalيه wasalama waa iska fasaxay nabiga salى اllahu عalيه wasalam waa fasaxay waa cafiyey ninkii markii qoladiisa u tegey wuxuu yidhi waxaan idinkaga yimid ifkan dadka ku nool oo makhluuqaadka ilaahay qofka ugu khayrka badan ayaan maanta ka imid u yidhi yaa intaas samayn kara u yidhi oo nabiy llaahi moxamed ahayn salى اllahu عalيه wasalam qof dili rabay yaa fasaxayuu yidhi kalsoonida ilaahay uu ku qabo nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi mawaaqifka ad adag iyo duruufaha adag
ee soo maray nebigeenna salى اllahu عalيه wasalam oo nebigeenna salى اllahu عalيه wasalam uu nagu barayey tawakulka iyo kalsoonida ilaahay waxaa ka mid ahaa mowqifkii markii godka uu galay nebigu salى اllahu عalيه wasalam ee gaaladu ay raadinayeen oo gaaladu ay eryayeen nebiga salى اllahu عalيه wasalam goduu galay nebigu salى اllahu عalيه wasalam raadkii soo raaceen waxay ku yimaadeen godkii ay hareereeyeen godkii nabigu ku jiray salى اllahu عalيه wasalam iyo sayidina abubakr الsidiiq ayay hareereeyeen gaaladii abubakr الsidiiq wuxuu yidhi wallaahi low nadara axaduhum taxta aqdaamihi la ra'aana rasuulka ilaahay ow mid gaalada ka mid ah hadduu lugihiisa hoostiisa fiirin lahaa waana arki lahaayeen lugaha inay fiiriyaan bisaa naga dhiman yidhi rasuulka ilaahay hadday hoos fiiriyaan wayna arkayaan rasuulka ilaahay xoogaa cabsiyaa soo wajahday sayidina abubakr الsidiiq nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh muxuu ku yidhi bal kalsoonida uuna barayo nebigu salى اllahu عalيه wasalam duruufaha adag markaad geshid waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kalsoonidaada uu kugu arko rabbi aad ku kalsoon tahay ku xihan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi sayidina abubakr wuxuu ku yidhi famaa danuka yaa abaa bakrin bاثnayn allahu ثaaliثuhuma abubakarow maxaad u malaynaya laba qof oo ilaahay saddex ku yahay laba qof oo ilaahay saddex ku yahay oo ilaahay u hiilinayo qofka saddexaad oo garabkeenna taaganoo noo hiilinaya na waardiyeynaya ilaahay hadduu yahay maxaad noo malaynaya uu yidhi abubakarow ma dad walwalaa dadkaas id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana meesha ilahay uu yidhi faأnzla allahu sakiinatahu calayh وأyadahu bijunuudi lam tarawha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xasuusta xilligii nebigu godka ku jiray salى اllahu عalيه wasalam id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana markuu nebigu salى اllahu عalيه wasalam saaxiibkiisa ku dhahayey ha murugoonin ha cabsanin ha welwelin ilaaha nala jira kalsoonidaa markay ilaahay u muujiyeen ilaahay muxuu sameeyey ilaahay uu ka jawaabay faأnzla allahu sakiinatahu calayh وأyadahu bijunuudin ilaahay xasilooniyuu qalbigoodii ku soo dejiyey ciidamo aan la arkaynin oo malaa'igta ilaahaya ayaa ilaahay ku hareereeyey oo indhihii gaaladaba ka xafiday mahmaa ilaahay aad kalsooni u muujisid sidaasaa noloshaadu noqonay mahmaa ilaahay aad ku kalsoonaatid subxaanahu wa tacaala noloshaada sidaasii noqon lidaalika wuxuuna bari nebigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh markii duruufo adag ay ku soo wajahaan waa inaad tidhaahid allahu maci ilaahay ila jira aniga bis dhibna ma arkayo ilaahay ayaa ila jira nebiyullaahi muuse calayhi الsalaaةu wasalaam nebiyullaahi muuse calayhi الsalaaةu wasalaam qisadiisa qur'aanka aaduu ilaahay ugu soo celceliyey aaday qur'aanka ugu soo laalaabatay liannahu qisadaas waa qiso aad u cajiib badan waa qiso xambaarsan culuum iyo xikmado iyo mawaacid iyo waanooyin aad u fara badan qisaةu nebiy llaahi muusa calayhi الsalaaةu wasalaam min acjabi اlqisasi fi اlqur'aani اlkariim qur'aan kariimkaa qisaska uu sheegay qisooyinka ugu yaabka badan ay ka mid tahay maxaa yeelay fircawn waa dowladdii markaa masar ka talinaysay ninkaa fircawn wuxuu aaminay asbaabta koonkan ayuu aaminay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ku kufriyey niman kaahiniin ahoo saaxiriin ah oo uu samaystay oo inay difaacaan oo dowladdiisa ay difaacaan ayuu u samaystay fircoon saaxiriin nimankii sixiroolayaasha ahaa waxay yidhaaheen dhibaataa kugu soo wajahan fircawnow dhibaataduna waxay kaaga imaanee qabiilkan la yidhaha banu israa'iil banu israa'iil waxaa ka dhalan doona wiil sabab u noqon doona dhimashadaada iyo dowladdaadu inay burburto ayaa qabiilkaa ka dhalan doona kalsooni ilaahay ma jirto leannu ilaahay mama yaqaanaba waa gaal sidii warkoodii u aaminay haddaad saaxir warkiisa aamintid kaahin warkiisa aad aamintid faalshow warkiisa aad aamintid khasaara un kuu dambaynaya adigana kitaab gaablow warkiisa aad aamintid khasaara kuu dambaynayso wuxuuna kaa dhiganaa marka ugu dambaysa neef ariyo ari carbeed ah oo meeshuu rabo uu wada wato marka ugu dambaysana adigii asaguba waxaad ku dambayn doontaan khaatimo xumo saaxirka aad arrintaada u dhiibatay
kitaab gaablowga taladaad u dhiibatay adigay asaguba khaatimo xumad ku dambayn doonta haddaadna ka toobad keenin ninkaas saaxiriintaasuu ku xirnaaday fircawn marka waxay ku yidhaaheen qabiilkaas wiil yaraa ka dhalan doona dowladdaaduu burburin doonaa wuxuuna sabab u noqon doonaa geeridaada iyo dhimashadaada iyo dilkaaga wuxuu sameeyey go-aan wuxuu qaatay qabiilkaa wixii ka dhashaba waan gowriciyuu yidhi wiilkii dhashaba waa gowraca uu yidhi islaamuhu markay uurka leeyihiin wuxuu sameeyaa dad xaarisiin ah oo ilaaliyo ishraaf ku sameeyo kontaroola ayaa la daba dhigaa hadday gabar dhasho waa la cafiyaa hadday wiil dhashana waa la gowracaa qabiilkaa wiil ka dhasha reer banu israa'iil fircoon asbaabtaasuu aaminay ilaahay subxaanahu wa tacaala jallat qudratuh wa calad kelimatuh tabardarrida fircoon iyo makhluuqa dhan tabardarridooda ayaa ilaahayna tusayey subxaanahu wa tacaala ilaahay muxuu sameeyey waxaa lagu khasbay fircoon isagoon ogeyn oon dareensanayn nebiyullaahi muuse oo dowladdiisa baabi'in doona oo geeridiisa sabab noqon doona fircawn inuu gacantiisa ku soo koriyo oo gurigiisa qasriga madaxtooyadiisa uu asagu ku koriyo ayaa ilaahay ku khasbay waa qiso cajiiba bal u fiirso ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala wiilkii mulkigiisa iyo dowladdiisa sabab u noqon lahaa inay baaba'do geeridiisa sabab u noqon lahaa fircoon waxaa lagu khasbay inuu asagu koriyo biilo dharka u iibiyo sariirtiisa ku seexdo madaxtooyadiisa uu ku soo barbaaro ka bacdina uu dumiyo dowladdiisa asagana uu sabab u noqdo dhimashadiisa fircoon maxaa dhacay nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam hooyadii markay uur yeelatay oo uurkii uu soo dhowaaday inuu dhasho nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda ayaa lagu ilhaamiyey hooyadii markii ay dhali rabtay nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxa an iqdi fiihi fi taabuut waxaa la yidhi sanduuq isaga rid wiilka markii aad dhashid sanduuq isaga rid faqdi fiihi fi lyam sanduuqa markii aad ku rididna badda iska dhex dhig badda isaga tuur sanduuqa iyaduna hooyadaa kalsoonideeda fiiri cunug xalay dhashay qof yeelaysa ma jirtaa sanduuq ku ridee badda isaga tuur ilaaha yidhi annagaa badbaadinaya halkaa ku tuur badda isaga tuur waa nebiyullaahi muuse falyulqihi اlyamu biالsaaxil ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sanduuqu wuxuu ku soo tuuri doonaa baddu waxay sanduuqa ku soo tiiri doontaa xeebta fircoon uu degan yahay sar weyn uu ka dhistay xeebta badda si uu ugu raaxaysto fircoon xeebtiisa lagu soo tuuri doonaa hal ya'khudhu caduwun lii wa caduwun lah waxaa qaadi doona cadow aniga aan leeyahay iyo cadow nebi muuse uu leeyahay ayaa qaban doona waxa meesha broseeska uu mari doonoo dhan waa loo sharxay hooyadiis intaasuu mari doona hal ninkaasaa qaadi doona ninkaas ayaan ku khasbi doonaa inuu koriyo waa lagu ilhaamina sanduuqay ku riday sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbigeeda ku ilhaamiyey badday isaga tuurtay baddii way soo tuftay sanduuqii xeebtii guriga fircoon uu ka dhisnaa ayuu ku soo tuurtay wiilkii askartii way qaadeen sanduuqan way fiiriyeen wiilaa dhex yaalla waa nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wiilkii dhex yaallay waxaa loo geeyey fircawn fircawn wuxuu yidhi wiilkan waa la ii soo qariyey waana dilaa uu yidhi waa midkii idil rabay islaantii uu qabay lambarrada ilaahay subxaanahu wa tacaala laa'ifkan ilaahay isagaa maamula ilaaha isku toosinaya lambarrada islaantii uu qabay fircoon waxay tidhi quratu caynin lii walak laa taqtuluuh casaa an yanfacana aw natakhidahu walada waxay tidhi hanaga dilin waxaa dhici karta inuu berrina anfaco hadduu dhibaato noo keenana gurigeenna dhexdiisuu ku jiraa dhibaato hadduu noo keeno guriga dhexdiisaan ku dilaynaa annagaa korinayna fircoon wuu qaatay ilaahay awoodda ilaahay cid ka hor istaagi kartaa ma jirto fircoon taladii u qaatay wuu soo koriyey nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam guriga fircoon uu ku soo barbaaray ilaa 20 sano uu ku gaaray fircoon qasrigiisii maalintii dambe wuxuu arkay qof muumin ah oo nin gaaluhu eriyanayo oo dhibaataysanayo rafaadinayo arkay nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam
ninkii gaalka ahaa ayuu dilay kow ka siiyey nabiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam fircawn wuxuu yidhi hadduu bilaabay yuu yidhi hadduu bilaabay maalintaa waxaan sheegayey waa kaa hadduu dil nagu bilaabay nabiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam fircoon ciidamadiisuu isugu yeeray ha la soo qabto yidhi waan dilaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku badbaadiyey ninaa u soo sheegay sirtii wuxuu yidhi waa lagu dili rabaa nabiy llaahi muuse magaalada isaga bax dhulka madyan uu haajiray nebi muuse calayhi salaatu wasalaam dhulkaa madyan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebinimo iyo risaalo halkaasuu ku soo qaatay oo nebi laga dhigay nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam isagoo nebi oo rasuul ah uu masar soo galay dadkiiuu diintii ugu yeeray fircawn wuxuu isku dayey inuu saaxiriin uu ku difaaco diinta nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusay mucjizo weyn ushuu dhulka ku dhufanayey abeeso weynay noqonaysa wuxuu yidhi ninkani waa sixiroole waxaan ku difaacayaa sixiroolayaal kale sixiroolayaal soo aruuriyey fircawn sixirooleyaalkii nebiy llaahi muusa meel fagaaraa laysugu keenay sixiroolayaashii dadkii waxay indhahoodii ku sixreen waxa hortooda yaalla inay masas yihiin waana wax beena indha sarcaad waa ulo caadiya waxa meesha yaal laakiin indha sarcaaday sameeyeenoo waxaad u malaynaya mas kugu soo ordaya ulihii intay dhulku dhufteen nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ushiisiiyuu dhulka ku dhuftay mucjizada ahayd wixii masaskii ayay gurubsatay abeesadii ushii abeeso noqotay masaskii oo dhan ay gurubsatay fircawn markuu arrintaa arkay wuu yaabay nimankii saaxiriintaa kullii way soo hanuuneen waxay yidhaaheen waxani sixir maaha waa mucjizo rabbaani xagga rabbi ka socota markaasay meeshii sujuud ilaahay ugu dhaceen halkii ku islaameen nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam fircawn wuxuu go'aansaday inuu marka gacan iyo ciidan uu ku muquuniyo nebiy llaahi muusena ciidankiisa iyo dadka mu'miniinta markaa rumeeyey way yaraayeen masar uu isaga baxay nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam fircoon ciidamo badan uu daba dhigay si loo soo qabto nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam mu'miniintiisii baddii masar markii la marayo ayaa fircoonoo eryaya nebiy llaahi muuse ayaa nebiy llaahi muuse wuxuu dhexda u galay ciidankii fircoonoo eryay iyo baddii inta u dhexaysa isagoo taagan u arkay qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun falamaa taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun nebiy llaahi muuse dadkii la socday calayhi salaatu wasalaam muslimiinta waxay yidhaaheen waa nala hayaa nebi muuse gacanaan ku jirnaa fircoonna waana dilahay markaasaa tala saarashadii ilaahay uu la soo baxay nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi kallaa inna macii rabbii sayahdiin ma jirtuu yidhi ilaahay ma idayacayo ilaaha ila jiruu yidhi ilaaha ila jira ilaahayna idayici maayo waana ka guulaysanaynaa walu fiirso duruufaha uu ku jiro baddiina halkan wey ciidankii fircoonna way eryayaan ilaahay qofkii tala saarta saasuu ilaahay faraj ugu furaa nebiy llaahi muuse waxaa lagu yidhi ushaada badda ku dhufo baddiiyaa kala yaacday baddii ilaahay wuxuu uga dhigay laami weynaa ilaahay uga furay oy ka dhex dusaan nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo qoomkiisii laamigii baddii laga dhex furay ayay iska mareen fircoon iyo ciidankiisii waxay u maleeyeen laamigan iska dhex mara adinkuna fircoon meeshiiu soo gal iyo ciidankiisii markii ay meeshii ku soo dhammaadeen fircoon iyo qoomkiisii baddiiyaa labada dhinac ilaahay isaga keenay halkaasuu ku baaba'ay madaxtooyadiisii ciidankiisii isagii halkii ku baktiyeen ay ku baaba'een xatىa إidaa adrakahu الغarq qaala aamantu أnnahu laa ilaaha ila اladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin alآana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin fircoon markii naftu ka baxaysay wuxuu yidhi ilaahu haddaan ku rumaysanahayuu yidhi haddaan towxiidka qirahayaa waa markii sakaraadka u yimid maantuu xaqiiqadii ogaaday markaasaa ilaahay wuxuu ugu jawaabay alآana waqad casayta qabl ma haddeera toobad keentay ma laga aqbalay toobadu waa kaa xihantay saasuu ku dhintay fircoon marka nebiy llaahi muuse calayhi salaatu wasalaam isagoo ciidankiisu yar yahay wuxuu ku badbaaday tala saarashadii ilaahay uu tala saartay subxaanahu wa tacaala walidaalika hubka ugu weyn oo noloshaada aad ku maarayn karto waa atawakul cala allah kalsoonida alleh ugu ogow waxaad ogaataa qofka ugu awoodda badan adduunka ugu hubka badan ugu geesisan waa qofka ilaahay tala saarto o ilaahay ku kalsoon
qofka ugu kalsoonida badan, qofka ugu qalbiga raaxada badan, qofka subxaanahu wa tacaala. dabkii yaa lagu tuuray, dabkii sidaa u qaxaya dhexda markii looga tuuray xasbuna allaahu wa nicma alwakiil uu yidhi, ilaahan tala saarta, ilaahan ku kalsoona. ilaahay wuu u jawaabay, qofka ilaahay tala saarta saasuu ilaahay u xafidaa. ilaahay wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim. ilaahay wuxuu yidhi dabow qabow noqo, nebiyullaahi ibraahimna badbaadi. ilaa asbaabtan xaggee laga xukumaa? ilaahayaa xukuma asbaabta. dabka ilaahaa xukuma, gaariga ilaahaa xukuma, xabadda ilaahaa xukuma. wax walba quraanjada iyo qofka ugu awoodda sarreeya ilaahay xukunkiisay ku wada jiraan. dabkii waxaa la yidhi nebiyullahi ibraahim ii badbaadi. fasallaa salaatan fi nnaar, isagoo dabkiiuba salaad iska galayba dhexdiisa. nebiyullahi ibraahim qabow iyo raaxa isku noqota. nebiyullahi ibraahim wuxuu dhihi jiray noloshayda xilligii ugu raaxada badnaa waa xilligii gaaladu ay dabka igu tuureen. kulayl ma jiro, walwal ma jiro, murugo ma jirto, meeshiidii sunno isaga xirtay nebiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam. haakada kaana yafcalu tawakulu biahlih. tawakulka iyo kalsoonida ilaahay cajaa'ibtaasay kugu samayn doontaa haddii noloshaada laga helo kalsoonida ilaahay subxaanahu wa tacaala. musiibada midda ugu xun ayaad ku dhex raaxaysan doontaa ogaw. musiibada ugu xun markay ku soo wajahdo waxaad dareemi doontaa raaxo iyo qabow iyo deganaasho mahmaa tawakulka aad xaqiijiso kalsoonida alle subxaanahu wa tacaala. nebiyullahi ibraahim wuxuu yidhi noloshayda middii ugu fiicnayday u ahayd buuri, noloshayda iguma soo martay midday ugu raaxada badnayd ee yidhi markii ilaahay yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. wuxuu yidhi cabdullahi bni cabbaas wa qaalahaa muxamed lamaa qaala lahu nnaas, nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa kelimadan yidhi xasbuna allaahu wa nicma alwakiil markii nebiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allaahu wa nicma alwakiil faاnqalabuu binicmati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu waاtabacuu ridwaan allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi ereygan waxaa adeegsaday ku badbaaday nebiyullaahi moxamed salى allahu calayh wasalam markii la yidhi ciidan waa shayaadiintii iyo dadkii shayaadiintii la xidhiiray ayaa nebiga si ay u baqdin geliyaan salى allahu calayh wasalam waxay yidhaaheen adduunkii oo dhanaa ciidan kuu diyaariyey, maanta waa lagu cirib goyn doonaa nebiyullaahi moxamedo salى allahu calayh wasalam adigay saxaabadaada waxa kugu soo wajahan wax la qiyaasi karo maaha ciidanka kugu soo wajahan. nabigu muxuu yidhi salى allahu calayh wasalam ma dhihin balaayaa igu dhacday, xaggee geli doonaa, xaggee maaragtaa noloshayda ku maarayn doonaa. xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, ilaaha igu filan, ilaahan ku kalsoona, ilaahan tala saarta. faاnqalabuu binicmati min allaahi wa fadlin lam yamsashum suu. ilaahay wuxuu yidhi saxaabadii nicmay kala soo gadoomeen meeshii, wax dhibaataahuna ma taabanin nabiga iyo saxaabadiisii salى allahu calayhi wasalam. walidaalika noloshaada ku sale kelimadan ereygan xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, ilaaha nugu filan, ilaahana tala saaranay subxaanahu wa tacaala. noloshaada mar walbaba ku sale waxaad noqon doontaa bini aadamka qofka ugu raaxada badan, waxaad noqon doontaa bini aadamka qofka ugu qaboobid badan, noloshiisu ay qabow iyo deganaasho ku dhammaysta ayaad noqon doontaa biidni illaahi tacaala. nabigeenna salى allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii uu warinayey imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayey waxaa daabadda la saarnaa oo faraska la saarnaa maalin maalmaha ka mida nabiga salى allahu calayh wasalam cabdullaahi bnu cabbaas. cabdullaahi bnu cabbaas uu rabaa tawakulka iyo tala saarashada eebbe inuu nabigu baro salى allahu calayh wasalam. ilaahay nabigu wuxuu yidhi salى allahu calayh wasalam yaa ghulaam innii ucallimuka kelimaat, wiilkan yaro waxaan rabaa dhowr eray inaan ku baro, dhowr kelimo inaan ku baraan dooni. ixfad illaaha yaxfadka, ilaahay xifdi awaamirtiisa iyo diinta ilaahay xifdi oo ku camal falo ku dhaqan, ilaahay waa ku xafida addunya aakhiraba. ixfad illaaha tajidhu tujaahak waidaa sa'alta fas'al illaah, ilaahay markaad wax weydiisanayso ilaahay wax weydiiso, xaajadaada iyo danahaaga ilaahay u bandhigo. waida stacanta fastacin billaah, kaalmo markaad doonayso ilaahay kaalmo weydiiso. makhluuqaadkan dhan waxba kuuma qaban karaan, wuxuu ilaahay kuu qadaray mooye. waclam ogow
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك waxaad ogaataa cabdullahi bni cabbaasow caalamka dhan iyo ummadda dhani haddii ay isku waafaqaan inay ku anfacaan kuma anfici karaan waxaan ilaahay kuu qorin cirbadda ilaahay uusan kuu qorin hal xaboo ilaahay uusan kuu qorin kuguma anfici karaan adduunka dhani haddii ay isku kulmaan jinnigooda iyo insigooda walow ijtamacat calaa an yaduruuka lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk ummadda dhani hadday isku waafaqaan inay ku dhibaateeyaan oo ay qorshe soo dejiyaan ay kugu dhibaateeyaan kuma dhibaatayn karaan ilaa wax ilaahay hore uu kugu qorsheeyey mooye wax hore ilaahay uu kugu qadaray mooye wax kale kuma gaarsiin karaan kelimadaa iga xafidi uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam lidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam adfaasha cabdullahi bni cabbaas xilligaas qaangaar ma uusan ahayn wiil yaroon qaangaarin ayuu ahaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam carruurta ayuu xataa ku tarbiyeyn jiray kalsoonida alle lagu kalsoon yahay nebiga salى الlahu عalayه wasalam wuxuu ku yidhi xadiiskii tirmidi uu warinayey iyo kayrkiisba uu warinayey low tawakaluuna calى اllahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarzuqu طayr tagduu khimaasa wataruuxu biطaana nebiga salى الlahu عalayه wasalam wuxuu yidhi haddaad risqigiinna ilaahay u tala saaran lahaydeen sida shimbiruhuba ilaahay ay u tala saartaan ilaahay waa idin irsaaqi lahaa ilaahay waa idin irsaaqi lahaa maxaa yeele wuxuu yihi nabigu salى الlahu عalayه wasalam shimbiruhu buulkooda ayay ka duulaan subixi hay-ad meel kuma oga dukaan uma fura khasnada uma fura hadhowna waxay soo caraabaan ayagoo dhergan uu yihi nabigu salى الlahu عalayه wasalam yaa irsaaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbulcaalamiina irsaaqaya waxyaalaha kutubka qisaska qaarkood waxay qoraan nin sheekha wuxuu yidhi waxa welwel iga qabsaday dhinaca risqiga ayaa welwel iga qabsaday anigoo wuxuu yidhi musaafir oo meel maraya ayaan waxaan arkay uu yidhi geedaan ku nastay uu yidhi geedkii aan ku nasanayey ayaa wuxuu yidhi geedka hoostiisa waxaa ka qodnaa godkii aan fiiriyey godkaas waxaa ku dhex jira bahalkan cusfuurka la yidhaah cusfuurka waa shimbir weyn ayaa godkii ku jirta meel xasha oo godahay ku hoos jirta shimbirtii waan fiiriyey waa indhala daha yuri shimbirtii waa shimbir indhala waana cayilanta ma haado meel ma aado maxaa meel ay u jeeddo ma taqaan geed ay u jeedday waxay cuntaxo ma arkayso waxaan arkay uu yidhi muddo ka bacdi anigoo meeshii fadhiya bahal gorgor ah waa gorgorkii shimbiraha cuni jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiis bahal gorgor ah oo hilib yar intuu u keenay meesha xashka ugu soo ridayaan arku yidhi dalaq ugu soo siinay meesha iska cuntaa mudduu haddana ka maqnaan wax yaruu haddana meeshii uu ugu soo ridi uu yidhi maalintaasaan waxaan ogaaduu yidhi qofna inaanan waxba weydiisan allihii shimbirtaa indhala gorgorkii cadowgeeda ahaa u soo sakhiray gorgorku waa cadow shimbiro lama tuso waa gurubsadaa gorgorka cadowga bahashaa indhala meesha ku quudinaya ayaan waxaan ogaaduu yidhi in irsaaqaduba ilaahay subxaanahu wa tacaala meel walbood joogto ilahay uu kugu irsaaqi karo markaasaa welwelkii iyo kurbadii risqigu idaysay marka waxaa la doonay mar walbaba arrimahaaga dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u dhiibto ood ku wajahdo intaasaan kelimaadkeennii in sha allahu tacala aan ku gaabinayna hada billahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin wsala allahuma wslama wbaaraka calى sayidina mxamedi wcalى alihi wsaxaabati اlkiraam ajmaciin allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wfi اlaakhirati xasanata wqina cadaab الnar allahuma ina nasaluka ridaaka wاljanة wnacuudu bika min sakhatika wالnar allahuma ina nasaluka min alkhayri kulihi caajilihi waajilihi ma calimna minhu ma lam naclam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الحمد لله صلى الله عليه وسلم